xarunta tababarka ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee General Kahaye ee degmada Xamarjab ayaa maanta lagu qabtay dibadbax aad u weyn oo ay ka soo qayb galeen kumanaan dadweynaha ka yimid magaalada Muqdisho kuwaas oo muujinaya dareenkooda ku aadan sida ay uga yihiin falkii wuxuushnimada ahaa oo ay kooxda argagixisada al-shabaab ku xasuuqeen dad shacab oo waxba galabsan kuwaas oo isticmaalaya wadada isku xirta gobolada Banaadir iyo gobolka Shabeellaha Hoose waana isgoyska ugu muhiimsan ee magaalada Muqdisho oo ah isgoyska Ekeys Control Afgooye qaraxaasi wuxuushnimada ahaa ee argagixisadu ay ku faantay ayaa lagu xasuuqay dad shacab oo waxba galabsan kuwaas oo u badnaa arday Soomaaliyeed oo kala socotay dugsiyada waxbarasho iyo xarumaha jaamacadaha dibadbaxani waxaa dadweynaha Soomaaliyeed kala qayb galay madaxda qaranka iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Umar Maxamuud Maxamed Umar Filisha marka laga tago iskuulka General Kahaye waxay dadweynaha ku qulqulayeen wadooyinka kala duwan ee caasimadda kuwaas oo ay ku muujinayeen dareenkooda ku aadan sida ay uga xuyeen falalka guracaan oo ay argagixisada ku xasuuqayso shacabka Soomaaliyeed qaar kamid ah dadka dibadbaxayaasha oo aan dareenkooda wax ka weydiiyay ayaa ii sheegay in shacabka reer Muqdisho ay diyaar u yihiin la dagaalanka iyo ciribtirka argagixisada al-shabaab si ay ugu noolaadaan nabad iyo nolol magacayga waa Madiine Maxamed Cismaan waxaan u arkaa anaga daana reer Muqdisho dareenkeena waa kacsan yahay ma ogolaanayno qarax loo soo masaafuriyo Muqdisho waa ka dagaalamaynaa dhammaanteen haweenka askaranahay waa dagaalamaynaa ma ogolin mana yeeli doono Muqdisho shacabkeena insaan loo gala ma yeelayno maxaa dambiga ay galeen maxaa galabsanay anaga inaan dagaalnan diyaaruna daana haweenka Soomaaliyeed magacayga waxa la yiraahdaa Cilmi Makaraan Guuleed waxaana gudoomiye ku xigeenka iskaashatada mootooyinka gobolka Banaadir waxaan u nimid meeshaan inaan ka tacsiyeyno dhibaatadii ka dhacday Ekeys Control inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun intii dhimata Allah u naxariisto inta dhaawacana Ilaahay hoo boogadhayo midda kale waxa weeye dadka meesha ku dhinta ama waa ugu horeynaa ama waa ugu badannahay marka insha Allah waalidiinta Soomaaliyeed iyo hooyooyinka iyo aabayaasha wixii wiilal iyo gabdho uga dhinta meesha waa ugu tacsiyeynaynaa waxaana leenahay mar labaad iyo mar saddexaad inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Allah u naxariisto magacaygu ah Cabdicaiis Cali Soo Xasan oo ah gudoomiyaha guddiga iskaashatada mootooyinka bajaajka gobolka Banaadir saad la socoteen waxaan u tacsanaynaa dibka ka dhacay Ekeys Control Afgooye dhibaatada shacabka Soomaaliyeed ka soo gaaray gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed oo ardayda iyo shacabkii iyo dadkii gaadiidleyda ahaayeen aan u tacsanaynaa marka xigtana waxaan qaasatan u tacsanaynaa dhallinyaradii Soomaaliyeed oo bajaajleyda ahayd oo jaamiciintii aqoon-yahanada Soomaaliyeed ka mid ahaa marka warmarna dhibkaas ugu dhacaa waa mid joogto ah dawladda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa dhallinyaradaas iyo hantidooda in wax laga qabto waa mar madaxda kala duwan oo goobta dadweynaha kula hadlay waxay tilmaameen in dawladda Soomaaliya ay diyaar u tahay la dagaalanka iyo ciribtirka argagixisada al-shabaab si shacabkeeda ay ugu noolaato nabad iyo naxariis ayagoo maamulka gobolka Banaadir cagafyada iyo baabuurtooda jiidda hore ay jiraan ayay tusaale u noqonaysaa in maamulka gobolka Banaadir ay ka go'an tahay in la wiiqo oo la ciribtiro 2020 cadawga arxalaawayaasha maanta waa maalin aan rabno inaan u muujino cadawgeena cududeenna iyo midnimadeena waa maalin aan go'aansanay inaan u dhimanno dhulkeenna calankeena iyo qarannimadeena sabarka waa naqaan waan sabraynaa intii naga dhimatayna waan ka sabraynaa Soomaaliya dhulkan ka dhamaamayso cali dheer asaa daalaya xanuunkana asoo ku dabaynaya asaga iyo inta la midka taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Sareegaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo kulankan barodiiqda ka hadlay waxa uu tilmaamay in ciidanka amniga ay u baahan yihiin garabka shacabka Soomaaliyeed si loogu guuleysto la dagaalanka kooxaha xagjirka ah marka waxaan soo jeedinayaa ama ka codsanayaa in degmooyinka shacabka jooga dadka booliiska ee meesha jooga ee degmooyinka la yaqaano way ka dhuumanayaan laakiin dadka kuma dhex dhuuman karaan xaafadaha ma dhex gali karaan hadday og yihiin dadku inay farta ku fiiqayaan inaanu gacmaha isqabsanno oo aanu badbaadinno dalkeenna gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Umar Maxamuud Maxamed Umar Filisha waxa uu dhankiisa tilmaamay in maamulkiisa uu xoojin doono barnaamijyada kala duwan iyo siyaasadaha adag oo lagu ciribtirayo argagixisada al-shabaab si magaalada Muqdisho ay ula mid noqoto magaalooyinka dhigeeda ee hormaray waa inaan u midowno waa inaan aragti mid ah ku wajahno
intii koox naloo diri lahaa ee aan ku sugi lahayn guryaheenna ilaan qaraxa gurigay noogu keenayaane waa inaan annagu meesha ay joogaan ugu tagno haddii alle dadka waxbartay dadka hantida leh waxaan rabaa inaan u sheego kan waxbartay inuu dadka u sheego cadowgiisu inuu al-shabaab yahay inuusan ka baqan midka hantida haysta handadaadda lacagaha baadda ah looga qaadaya waa inuu iska diido waayo ubadkooda ayaa lagu baabi'inayaa waxaad adiga og tahay maanta haddii laga qaado berrito ubadkaaga in lagu baabi'inayo in aad bixisaaho soo doqonnimo maaha shacabka reer muqdisho ayaa sidaan oo kale dhowr mar waxa ay u muujiyeen dareenkooda ku aadan sida ay uga xun yihiin falalka gurcan oo ay argixisada ku dhibaataynaysa shacabka Soomaaliyeed waxay sidoo kale tilmaameen in ay diyaar u yihiin dagaalada dalka loogu xireenayo argixisada si ummadda Soomaaliyeed loo soo celiyo qarannimadeedii heybadii caalamka ku lahayd bariismaadkii Nuur Saciid Taaliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed dugsiga tababarka ciidanka booliiska Soomaaliyeed Janakaaye ee magaalada Muqdisho